codkiisi xor maaha ama reer buu ku salaysan yahay ama caaqil baa dabada ku wada ama suldaan baa wada ama qabyaalad buu ku salaysan yahay hadhow haddana wuxuu raadinayaa horumar iminka dadka oo dhan waxay u dagaalamayaan in shakhsi ka shaqo galo xukuumadda بسم الله كسر دوادة برنامج كيني محا عصب قلبونا سنة دي قلب كوتاي هبين ونا سنة هبين كوتاي هذا محا كونا سنة إنه نهلنا ننكي كعام بحي على كسومال لان إنه كبابية مقالة لندن وعد فتاح سعيد محمد وكشغي يعرف مع برشدة الفتاح سولو نودوه هي خضر دير الله يبارك أدري يبه هذا استوديو قبعات بعدين سلامية أنت ينداون داتنا عاد بنو سلامية صدق له إن مدان عاد سيدرين سنة كسو وريجين مقالة لندن واحد كحلة دريسكي سومالي لان على كنا وابا بساي كاصل مركاسي آل عان ونقطة بنا برشدية ميلا بدن أضد مركان لو حيال بدن كلا كشغين شرين محاك وسبين العالم كاي يدريسكا لندن كحلة والله لو أهرين خضروا وسؤال هذا ونكسن سؤال شكواد باهذا مركب وهريسا دتك قرب تشوجا هي أو قوان ريدن كودي قرنكا ومناسبته هذا كغيب قلا أما كدح مقدر فرحها معلومة استدي تمكمية يسوي منيان أيارنتي سبب تواي دتكو ده ودمك اللي يشوفان دول كلي يكونوا لين أرنت كلا يدا لفت يدا مسكح إذا كو أبورنيد أما أرنتي شعيل بالإنجليزي وأنا جاي أسلوب تي ضد لماذا أخلاق ضعيفة كقرن كتمرد سومال ليه هي وده حيسوي اللي بتيجي إنه كسكرنا يكوريسي محمد سياد برو عيدا كيدريس كلا قبل قتري فرحنا وده حيصدرتي waxaan jeclaystay inaan aniguna muujiyo dareenkaaga jacaylkan ciidanka qaranka u qabo dadkana waxaan jeclaystay inay munaasabadaha isugu imanayaan ay ku arkaan astaanta ciidankooda dadku soo ficil celigelay marka wallahi runtii waxay ahayd aniga maalmo farxad badan xiiq badan daal badan qof kasta wuxuu jecel yahay inuu sawir kula galo khadar kumaan xiran kaliya ingiriiska jarmal baan ku xidhay sweden baan ku xidhay iyo ingiriiska saddex meelood buu la tagay waliba labada dal kale intan diyaarada u raacay man xaflada kaga qayb galay Sweden iyo Jarmalka marka ujeedadana ay ahayd inay dadku ay farxadda ciidanka qaranka iyo jacaylka ciidanka qaranka ay aniga lafteedu Soomaaliland aad u jecelo runtii jecel inuu travel marar badan meelo badan u tago ka qayb qaato munaasabadaheeda runtii waa dareen qofka marka halka ku sugan inuu qiyaasi karayo dadku si u jecel yihiin way Alfataax قرب تشوجة يتعايل كودنك ما حاك الحياة وسؤال هذا ونكسن أرتا واحد اللي نعدل مرة لواني من لا يلاهين قف مركو دلكي سكتوا أي دريم يعينوا نقضي قف مسافرة وأي مكان دلكي يتوبيين وبيحكي جاي تبضون ونسكت الله سين وتونين وقب حنا المركز ده ما كي بلاو ذي ولا بيتوبيا ندت كشرعي ده حدي سبري جور ده لكن قف مركو حد كسومال لا يكتوبيا كبحو أيوم ببري جور دريم مشرين وياهي قف أجانبه مركا أجانب نمذا مركا درينتيد وحكوا قلي يتعال بدن وحكلوا يدنا كينيا دي والضمدي كلا تكون نولي سيدي مركا ركض الدل لسنا وهرم مريو ده رجل هارستيو حاجاتي عادي كنا همي بكوا قلي inaad u bahooliyowdo meeshii aad ku dhalatay ka timi ehelkaaga boqolkiiba 90 ku noolaayeen lama horan waa cusjilal marka taas keenaysa jacaylka iyo muxbbada heesaha badan iyo gabayada badan ee deefintii laga tiriyay rageen horeeyay meelka qurba joog waa maxay jacaylkan ay hayaan ee special ka ah waa xiisahaas qofku wadanka la ku nool yahay ayba iyo dalkiisii uu ka maqan yahay way dadka qurba jooga markay wadanka ku soo noqdaan sawir kale أيام مركز كل مان أما ذاتك ودنك جوجا هالنقطة أنا قلقل جوجا أما كوا كلام مركي على ودنك كوسون نقطة أضو علن كي حدي أضو دريس كي حدي علن كي لدن كببيي وما حي مركز تصون نقطة ودنك كوسون نقطة تصور كتكلا عركت ودنك والله هرت دتكو ويكل دوينهين عركت دويكل دوان أركي دادي لي وي وريا ورنيكي ديجاها ورنيكي هالكاس دا أو ديج أقوان صدايو قرتي لكن حقا مركز أنت لو يمدو qofku markuu dibadda ka yimaado ahmiyad badan baa ku jirta waxaan qabo waxaan kala sameeyay dalkii waxaan ka qayb qaado laakiin markuu yimaado hadana U10 buu sameeyaa dadku dib u raaca taana waxa keenaya sawirka adiga marka sida timaadid imaka mesela maalmihii ugu horeysay dhaw arkada warkan uu khalday marka dadku xukun qurbahaad ka timi wax kasto qaldan waxa qoreen waa caadi qurbahaad ka timi waa adiga wadanka jecel imaka calaamadaha yaryar ee ugu xiran
tii qaranka iyo calankii qaranka ah dad badan waxay aaminsan yihiin markay arkaan inaan ahay qof xil dowladda ka haya dad badan waxay aaminsan yihiin inaan xil doon ahay marka waxay ku tusaysaa dee dadkii halkay ka taagan yihiin jacaylkii dalka iyo siday u arkaan qaladaadkii iyo dhibaatooyinkii dhacayay inay wax iska normala yihiin marka ay adigii kugu incharge gareeyaan inaad qof qaldan oo qurbaha ka yimid tahay marka sawirkaaga wuu isbedelayaa inaad iyagii raacdad noqonaysa waay markaa bal sawirka kale tafsiir guud naga sii waa maxay markaas sidaas u bedelaysaa markaa may dadkii aad muwaadiniin ahayn sidaad muwaadin u tahay ma caadifad iyagu waxaa halkan laga yidhahdaa caadifad baa laga yidhaahdaa oo qurbo joogu qiiray haystaan markaa ma qiiradii baa markaa halkan timaada kaa baxaysa sababtu waa maxaad bolas waa su-aal wanaagsan qiiradii aad qabtay iyo muxubadii aad qabtay waxaa biyo kaa badan iyo dad kaa badan way ku hafiyaan runtii dee waxaad noqonaysaa qof mar walba dagaal ku jira haddaad aragtidii aad la timi iyo jacaylkii aad la timi ku dhaqantid marar badan waxaan tegay xafiisyo badan meelo badan anigoo dan qaran ka shaqaynaya hawl qaran wada qof kasta kula yaabaya dadku waxay aaminsan yihiin qof kasta inuu dantiisa shakhsiga uun ka hadlo marka imanka dad badan oo dee aan saaxiibanaay ama ehelnaay wax qornay war maxaan adiga kuu qabanaa wax dantan guud iyo waxaad ka sheekeynaysa ka baxo marka qof kasta wuxuu aaminsan yahay inuu hal kaadh haysto kaadhkaan isagu xoqdo oo dantiisa ahaa way laakiin dadka qurbaa ka yimaadaa taa way ka duwan yihiin dadka qurbaha ka yimi taa way ka duwan yihiinoo dee qofkii wuxuu diidayaa laba arrin baa isdiidaya halkii uu ka yimi ee dee isku hagaagsanayd iyo waddankiisii hooyo oo uu arkayo 90% inaynay wixii hagaagsanayn oo 10% waxa la socday tahay marka gaab baa ku imanaya qofkii maskaxdiisii iyo shakhsiyadiisiiba way marka wuxuu dee uu la kulmaya situation adag dadka qolqol jooga ah ama waddanka jooga dhowr waxbay ka aaminsan yihiin qurbo jooga inay siyaasadii ku soo galeen oo maanta dee madaxweynayaasha Somaliland laba ka mid ay dee qurbaa ka yimaadeen inay xildhibaanadii u badan yihiin inay ganacsiga ka qaadeen marka dadka waddanka jooga waxa haysta ama qurbo jooganu inuu dib ku yahayba wallahi waa su'aal aad wanaagsan khadrow way jiraan horta dad u yimi iyaga laftooda halkan interest dad sacrifice u yimina way jiraan qurbo joogu waxaan qabaa dalkeenu dhaqaalaha koowaad u leeyahay waa xoolaha dhaqaalaha labaad ee dalku leeyahay waa qurbo joog ama lacag ay soo diraan ha noqdaan haddaan imika meel kaa tuso inaad dalxiisto xeebo qurux badan tagto magaalooyin qurux badan laamiyadooda weather fiican leh dee aad cunto fiican wax walba dee aad helaysaa ha ayaa laga yaabaa wax yari kugu baxayaan weliba haddana inaad Somaliland oo 10,000 kugu baxday oo iyadoo lagu caayo lagu hiifayaa dib uga noqonayso kabahaaga kululaada dib ilaabanaysid waxa keenaya qofku jacayl waddankiisa jecel yahay oo doonayo wixii uu cunayana inuu halkan ku cuno dadkiisii dee waxa ganacsi iyo business ay haysta ka faa'iidaan wixii lala cuni karayana lala cuno fikirka dad qurbaha ku soo saaqday oo iyaga laftooda halkan ku soo noqday way jiraan oo ma dhinay garanayo laakiin anigu waxaan qabaa qurbo joogu haddii halkan shaqo ka helayo ama halkan dee qofkii ganacsi iyo business furanaya dee ganacsiga businessku waa xoro meel walba dee ilaahay risqiisa qofku halku dhigay buu wax ka furanaya anigu waxaan u arkaa xitaa dadka ganacsiyada furay inay shaqo abuur sameeyeen oo meherado badan oo dee decorationkooda iyo bilicdooda iyo quruxdooda qurux badan tahay oo dee magaaladii iyo bilicdeedii iyo shaqo abuurba sameeyeen inay soo kordhiyeen laakiin xagga xilalka dowladda waxaan aaminsanahay qofku haddaanu haysan wuxuu dadkii dalka kaga horumarsan yahay oo kaga duwan yahay in qofka muwaadinka mar walba la tixgeliyo oo safe laga dhigo waxay ku damciyeen guurka laftiisa guurka wallahi hablin intii wanaagsaneyd ba qurbo joog ba qaadanaya haye taasina wax jirade wallahi horta habluhu kuwa xun iyo kuwa wanaagsan bas rag guleeyeen bay leeyihiin sax qurbo joog iyo qolqol joogna marka la guurku waa calaf qof walba maalin baa ilaahay qof guurkiisa calaf ugu dara sax waxa jira hablo badan oo Soomaaliyeed oo dhoofay oo rag ajaanib iyo dad ummado kala guursaday oo islaamka guursan oo qaaran Soomaaliba guursan marka guurku waa arrin xagga samada ka qorano anigu taa kuma eedayn karo dee waa bani fiican yihiin haddii raggii qurbaa joogay aanay dumar ajaanib inoo keenin ay soo laabteen hablahoodii guursadeen anigu waxaan qabaa inay great tahay ay fiican tahay ba
habluuna yimaadaan oo inamada halkan guursadaan absolutely sida ay sameeyaan Asian-kuba Asian kuwa sameeyaan way aftax Somaliland dhowr iyo 30 sano imika taagneed oo dadbada u taagnaayeen qurbo joogna kale qayb ma ka ahaayeen waxyaalahaas sawirkii Somaliland adigu aad kaga tagtay iyo sawirka maanta maxaa u dhaxeeya وسؤال wanaagsan Somaliland 1991 la asaasay waxay ahayd Somaliland nolol adag oo fool xun oo dib badan ka timi dadku qaawan yihiin guryo qaawan yihiin de la farmaran yahay zero la yahay dadku waxay hayeen emotionally way haayeen niyad fiican oo marka dadaal badan ku jirana way lahaayeen dad waxay haayeen oo gol inay nolosha ay zero ka bilaabeen ay meel fiican gaarsiiyaan dalkoodana runtii aad u jecel laakiin taa bedelkeeda waxaad moodaa iyadoo aan waxba la kaydin oo xogta waa la kaydiyaa fiidiyoada waa la kaydiyaa qoraalada waa la kaydiyaa waa la baahiyaa carruurta la baraa dadka lagu koriyaa sidii wixii adigu aynu shalay soo aragnay kuwa maanta jooga kuma fikir karaan marka noloshan dambe ee macaan waxaad moodaa inay dadkii ay luusisay wax badan oo dadkii imaka qof waliba kuley aniga ismi marka waxa kale uu ka fikirayaa ma jirto marka uu ka fikirayo way jaranjaray dheer oo de waqti badan aynu kaga sheekayna ma hayna laakiin markaad eegto reeray ka timi qabaal shakhsiyaad hadda qoys xitaa way soo dhaafto qof bay maraysaa baashi marka waxa meesha ka baxay wadaniyadii marka qofkan aad leedahay de wadanku waa dadkii marka wadaniyadu meel kale lama qaban marka leedahay qofka sabab nafsi buu leeyahay maxaad uga jeedaa waxa meesha ka baxay waxay ahayd in manhaj la sameeyo waxbarasho oo lagu daro wadan jacaylka qof kasta kama iman karo imika inamada wadamada inuu ka nimid dadka waxa la baraa de macluumaad kala duwan wadaniyada waa la jeclaysiyaa marka wadaniyada qofna uu ku dhalan karaa oo jeclaan karaa dadka qaarna in la baray marka anigu waxaan soo jeedin lahaa in la sameeyo qofka horta in la baro muwaadilka xaquuqda uu dalkiisa ku leeyahay fa intaan adigu waxba ka doonin adiga Somaliland maxay kaaga baahanta fees maxaad u baahantay inaad fuliso haddaad taa fahanto waad helaysaa xaq aad leedahay laakiin muwaadilku haddaanu xaquuqdii muwaadil isagu bixinayn dee ma helayo tii uu qarankiisa ku lahaa markaa isaguna meesha way ka baxaysaa hadda imaka waddankaynu ka nimiyo kale imsa cashuurood baynu bixinaa sharciga ma ilaalisaa haddaad ilaalin weyda maxaa ku yaala ganax iyo ciqaab miyaad ka dhuuman kartaa eeg waxa weeye qofkii waa isagunba jeebkiisii iyo caqligiisii maskaxdiisii dib la isugu maamulo marka dhaga fudayd iyo hoggaan fiican haddii dadkuna wax maqlaan hoggaan fiicanna aan helo yes we can waxaynu doonaynaa inaan markaa samayno gaari karno way su-aasha ugu dambaysa waxaa waa maxay talada iyo runtii waanada aad siinaysid markay timaado kelmadda wadaniyadu waa su-aal wanaagsan taa imika ugu dambaysay inuu hadal haynay qofka muwaadilka waxaa laga rabaa inuu first naftiisa ka bilaabo waliba waxaan ku talin lahaa hooyooyinka ayaa noloshu ka bilaabantaa guryaha jooga carruurta korinaya inay ubadka ku koriyaan jacaylka wadankooda oo qofku naftiisa ka hormariyo dalkiisa dee sida aan horena u sheegay manhaj waxbarasho oo dadka jeclaysiinaya oo waliba carruurta yaryar loo dhigo in la sameeyo intii doonaba ha leekada hadduu doono half an hour 15 minutes wuxuu doonaya ha noqdo waxay u baahantahay dadka in la baro xaquuqda muwaadilka dhulkiisa ku leeyahay marka uu isna raadiyo xaq uu dalkiisa ku leeyahay imika mesela haddaan meel ka tuso mararka qaar waxaa dhacdaa qof baa wuxuu codaynayaa 17 jeer 9 jeer 8 jeer buu foodayaa codkiisi xor maaha ama reer buu ku salaysan yahay ama caaqil baa dabada ku wada ama suldaan baa wada ama qabyaalad buu ku salaysan yahay hadhow haddana wuxuu raadinayaa horumar imika dadka oo dhan waxay u dagaalamayaan in shakhsi ka shaqo galo xukuumadda ama xilka helo horumarkii deegaanka iskuulaadkii waxbarashadii baahiyaha hidka asaasiga ah wixii waa laga talaabsada marka hadhow shakhsigaasi imse qof buu xasiin karaa imse qof baa shaxaadi karaa dee waxaasi maaha nolol iyo horumar maaha deegaan iyo mid wadaniyadoona midda kale qofku inuu cashuur bixiyo fiican noqdo oo cashuurta dalkiisa ku leeyahay bixiyo sharcigana ilaaliyo marka eeg waxaynu doonaynaa midho aynaan beeran baynu doonaynaa imika masalan haddaan kaa tuso dimuqraadiyaddii Somaliland fiicnayd ee xisbiyada ee la korinayay oo adiga halka ku dambaysay imse jeer baa ururada Somaliland la fura
laba jeer soo maaha oo min 10 sano mar walba urur kasta oo la furaa qabiil buu ku asaasmaya shakhsi maxba iska bedelaa sababta in lacagtan bilaayinka loogu bixinayo imika doorashooyinka maalin walba kiyuba loo galaa waa arkaysaa dadka masaakiinta ay bacadka taagan karaatonta madaxa ku sita de wax laga bedelay heed mar hore halkii laga bilaabay bay iska taagantay shaqaalihii commissionka waa la kala diraya oo la eriya maalin walba mid cusub la sameynaya iyadoo kalsooni darro jirto marka waxa weeye imika dawladda cusbeed waxa laga yaabaa inay shaqaaliyaga experience ka hayo dhan ay erido kuwa cusub marka qofkii dalkii uu ka shaqeysanayo uma shaqeynayo waayo waxa laga yaabaa imika dunida kale inuu qofku 50 sano 20 sano 30 sano xabsiyada dawladda ka soo shaqeynayay qofku xuduudaystay dalkiisa dadkiisa jeceliyay laakiin qofka nimka wuxuu ka fikirayaa madaxweynahan maanta kula qoladahay markuu bari tago waa lagu bedelayaa ee dhilahaasi dhacso way kamid ugu saxaan qabyaaladda iyo wadannimadu say soo qabsanaysa isma galayso horaan u sheegay maalin TV kala joognay saddex mas'alo Soomaalidu isku qasto waxa weeye waa diinta islaamka dimuqraadiyadii iyo qabyaaladii mid kale waan ku darayaayo iyadana ah dawladaha nimaka inoo yimiyay inaga dimuqraadiyadayna bara laba way baa loo isticmaalaa midii wax leedahay qayb iyo xukun midna waa horumarka iyo ayagu ay dadkeedii ku mideen marka dad u fiirsato ingiriiska qayb iyo xukun may ka jirtaa waa may Soomaha dadka waa la mideeyay waliba waxa laga dhaadhiciyay marka xaafadda aynu ka nimay Isla London kale inay dadku reer Isla London yihiin wana ku abtisan xagga ka timay Isla London Great London waxaynu nahnaa waxaan ka nimay anigu England baan ka yimi kan Scotland baan ka yimi علشان dadkii waxa laga dhaadhiciyay qofkii de eriyadii uu ka yimi in lagu programmiyo inagu waxaan qaadanay tii gumaysigu inagu xukmeeyay oo ah qayb oo xukun waa kow talabaad dadkii isku dilaysa talabaad waxa weeye waa saddexdan mas'ale ee reernimada iyo qofkiyo intuu de koonaya dad islaam ah nahay marka inuu midun qaadano midun loo goo ama dimuqraadiyadii oo si sax loo qaatay oo de sidii dawladaha nimankan aynu ka qaadanay ay ugu dhaqmeen loogu dhaqmo ama inaynu kitaabkeennii iyo diinteena islaamka noqono de muranba male taasan number 1 laakiin de magaxayna dadan ifi aakhira mid joogin oo meel dhexe walhanaya magaxda isqabsan mayso no isma galayso waxa weeye haddii marka aniga maanta xilay magacaabo reerkaygii baa igu soo xaadirayay soo fadhiisanaya muwaadinkii kalena muwaadilkii kale oo dhan waa qadaya mise hadhowna xukuumaddu inay bedeshoyga sabab u noqonaya haddaan wax kasta qabto oo si kasta u shaqeeyo ayaga raali gelin waayo in la bedelo reerka horeeya of course waxaana keenaya damaanad qaadkii muwaadilka dawladnimadu damaanad qaadi lahayd baa meesha ka maqan oo maanta haddii wax ku dhacaan caqalkaaga lagu yeedhaya isaga ku dambiinanaya isaga xidhahaagiya isaga furahaagiya suldaan iyo caqalba qofkii markaa jeebka ugu jira ويهي عبد الفتاح سعيد محمد عادي عبد المحسن تهي وقت النهار هرتي أبدا نكون فرحنا قادر الدرير عادي يبه هذا كلينا للشقين سبع فنتي أبدا لديكم هالعلنية opportunity iyo waqtiga time ka ayna siiseen Allah يبارك ما سنت وهي وبرنامج كني قل شغل شوق iyo qurbo jooga waxa u dhaxeeya iyo muwaadinimada hada waxaan rajaynaynaa aad iyo aad uga dhugatid fadlan share gare like na saar intan barnaamijkeen barnaamij kala kulmayno waa anigu qadar dirin idin leh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh